بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمانتين أصحابتا أدبين السلام يا maanta waxaan jeclay video hore aan soo geliyay ayaa ka hadlayay jebinta upload-ga. maanta insha Allah waxaan jeclay inaan ku daro isna upload-ga hab loo jebiyo ayaa jirta. Videogii hore aan soo geliyay upload-ga hab loo jebiyo ayaa jirta oo loo daba maro waxyaabii lagu xidhay looga furo. insha Allah maanta waxaan eegi doonaa upload-gan isaga laga jebin karin haddaad isticmaasho oo qof hackera intuu ku daba maro wuu jebin karayo upload-gaagii oo haddaad Facebook ku xidhatay, haddaad WhatsApp ku xidhatay, haddaad email ku xidhatay, haddaad Skype ku xidhatay aanu kaa jebin karin. oo inta badan waxaa loo jebiyaa san casharkii hore kaga hadlay force stop baa la yidhaahdaa, clear data la yidhaahdaa. waxyaaba badan baa loo maraa si appka loo joojiyo shaqadiina looga fadhiisiyo oo dabeetana saa lagu galo inay waxyaabihii sensitive data ku ahaa loo dhex galo. marka upload-gan maanta ka hadli doonaa insha Allah. haddaad Play Store-kaaga soo furto waxaan bad keliyaad ku qortaa upload markaad saa ku qorto waxaa ku soo bixi doona uploads tirada ka badan sidan hadda aniga ii soo baxday. uploads aad u tiro badan ayaa ku soo bixi doona. waxaa ku soo bixi doona waxaan oo upload-ga waxaan oo dhan waa lagu wada xidhaa applicationska waa lagu qariyaa oo lagu xidhaa gebigoodaba, laakiin kaynu u baahanay inagu kan maaha. hoos isaga soo uploadskan inta u badan waan wada eegay waa la jebin karaa. hadduu qof hackera ku daba maro wuu jebin karayaa, laakiin upload-gan maanta insha Allah idila wadaagi doono hacker baa tiriye qof ku daba mari karaan jirin oo jebin karaya. magaciisa waxaa la Leo privacy waaba kaa magaciisa ku soo baxay. waa upload-ga Leo privacy dash upload hide safe baa la yidhaha magaciisa. applicationku waa kan sawirkiisuna waa kaa. upload waa sidan sawirkiisuna waa kaa. waad ka bogan kartaa Leo privacy baa la yidhaha upload-gan. waxaa download gareeyay haddaad aragto si uu faa'iido badan u fiican. dad badan baa ka helay 50 milyan oo qof ayaa download gareystay. waxyaabaha laga soo commentiga laga soo bixiyeyna waa kan. install haddaad tiraahdo waad install garayso applicationka. videogan yaro qaban doono intuu application ku dhacayo waayo waqti inuu qaatan diidaya videogu dheeraado. sidaad aragtaan applicationku wuu dhamaaday. installing buu hadda ku jiraa. waxaa lagu duubayaa software-ka waa lagu duubayaa mobilka. hadda waa lagu duubay sidaad aragtaan. success buu yidhi waa lagu guuleystay in applicationka lagu duubo mobilka. open baad oranaysaa applicationka. iska xidha xayeysiiskan. applicationka marka ugu horeysa aad soo furto sano kale ayuu soo baxayaa. skip iska dheh skipta waad garanaysaa baan u malaynaya, waayo wuxuu kuu sheegayaa inta waxyaabaad u xidhi karo. haddana iminka logga ka haddaan ku eego aan log iskaga xidhaano applicationku waxyaaba badanna wuu isugu jiraa. scan buu leeyahay antivirus oo scan garaynayso mobilkaaga. waxaa kaa hore haddaan featureskiisan hoose u soo dego ta ugu horeysa waa privacy album oo isna waa videos and pictures hider buu leeyahay oo videoyada iyo pictureska ku qarinaya.
kan labaad isna wuxuu sheegayaa privacy video oo videogu ku xidhaya. ka korona waa albumka sawiraanta. browsingka oo waxyaabaha browsing garaynayso ayuu ku isna ku xafidaya safe ama secure kaaga dhigaya. privacy log oo isna abiskad ku xidhanaysa breaking alert hadduu mobilkaaga ka lumaya waxyaaba noocaas ah. intana waa boost oo mobilkaaga hadduu culusaado. muhiimadda ugu weyn ee applicationkan soo qaatay xaggan baynu ka aragnaa. xagga haddaad eegtaan hadda highlightka midow uu saaran yahay uninstall protection baa la yidhahdaa. applicationska kale wuxuu dheeriya waa intaa uninstall protection oo applicationkan kow laguma samayn karo uninstall oo qof hadduu mobilkaaga kaaba lumo kalaa qofna u aabayeeli maayo applicationka uu ka saaray soo arko wixii qarsanaa. marka applicationka uninstall laguma samayn karo. wuxuun baa ku samayn kara adiga oo yaqaan habka passwordka looga furayo bis. ta kale force stop laguma samayn karo. clear datana laguma samayn karayo. waynu arki doonaa insha allah. muhiimadiisuna waa taa. waxyaabaha kale idinkaa baari doona sii dhexgeli doona. haddaan optionkaas save bananaya sano kala uu soo baxaya. iminka haddaan cancel idhaahdo uninstall protection haddaan tigta saaro intanoo kalaaba ay soo baxaysa active badanaysa oo waad active garaynaysaa inaan applicationka uninstall la oran aanay force stopna la oran karin. haddaan xaggaa sare ku dhufto hadda highlight ku saaran yahay sanoo kala way soo saari doonaa. waxyaaba badan baa meeshan ku jira. haddaan qaar isdul taago xaggaa waa passwordkad ka bedelaysaa. ka koowaad change the password ama buttonka oo logan inta badan Samsung caanka ku yahay buttonka la yiraahdo ama passwordka oo lambarisa. security question qayb la yiraahdo xagana jirta. haddii aan ilaawo buttonkayga maxaan samayn karayaa. lambar bad xaggan gelinaysaa. wuxuu ku leeyahay set security question ku samee buu ku leeyahay security question su'aal oo security oo hadhow ku weydiiyo haddaad tiraahdo waan ilaawo kala passwordkayga. su'aal buu ku weydiinaya use lucky number as security answer. lucky number buu isticmaalaya yani lucky number waxa yahay lambarkayga nasiibka wuxuu noqon karayaa marka lambar aanad aad u ilaawi karin bad ka dhigaysaa. telephone lambarkaaga afartaada lambar u dambaysa afartaada horeysa afarta dhexe aduu lambar bad gashanaysaa confirm badan oo sadeetana. taa haddaan iska soo dhaafo taa kale haddaan u yimaado saddexaad autolog buu ku leeyahay after screen is locked. applicationka imika application baad gashay waad ka furtay logii logaasu muxuu isku xidhayaa weeyaan xaggan ay ka hadlaysa gebigeedu ma mobilka marka log la geliyo ay applicationska oo dhan is xidhayaan mise sikimis baad ku yani ku xidhaysaa oo dhowrkii sikima marba is xidhayaa. taa horeysa waxay autolog after screen is locked. marka saad logga screenka u geliso mobilka aad loo garayso automatic buu soo loo garaynaya. tan kalena waa always log markastaad applicationka aad gasho ka soo noqoto log buu ku qabanaya markiiba. tan dambaana fiican security ahaan tan dambe aad u fiican waayo mobilkaaga daaran aad gacanta ku hayso haddaad qof u dhiibto waayo applicationska oo sii gasho horood u running garaysay oo launch garaysay u running garaysay oo isticmaashay applicationka sidiisii buu soo furnaanaya. laakiin always log waa optionka ugu fiican oo markasta applicationkan Facebook oo kala abad furtay marka back soo tiraad ka soo noqoto automatic buu log ugu ridaya. marka optionka hadda security ahaan fiican ka kalena aad ka dhigan karaysaa. haddaan hore u sii dhaafo privacy log cover buu xaggan leeyahay waa sawir dul saara buu ku leeyahay only you know how to escape the cover and unlock the apps. keligaaba og buu ku leeyahay saad coverka u dhaafi karayso applicationskana u furi karayso. bartana sawir baad gashanaysaa aad leedahay waxyaaba noocaasa. privacy log changer wallpaper iska soo dhaafo privacy log invisible. bartan baa iyaduna muhiimad gaara leh security ahaan oo waa logga markaad furayso
Samsung-ka ama looga iska caanka inta badan markaad looga ka furayso yacni qofka ku ag jooga haddaad hal mar ka furto wuu ku fahmi karaya waayo looga wuu isa sawiraya markaa sawiraada haddaad iminka saa aan idhaahdo wuu sawiraya loogii haddaan saa idhahdana ma sawirayo hagana aan taa iyadana galo tan iyaduna muhiimad kale ay leedahay waa time setting imise jeer haddii lagu celiyo wuu isxiri karaya waa password attempt baa la yidhahdaa waa inta jeer la isku dayo haddaad mar khalado waad khaldi karaysaa biniaadan baad laba haddaad khalado biniaadan baad khaldi kartaa laakiin qofka 5 jeer loo ku celiyay dee adiga inaanay ahayn waa waxa yacni shuura oo hubaala adoo haddaad mar khalado gacantu degdegsantii kaga dhacdo mar labaad ku dhacdo mar saddexaad ku dhacdo waa caadi laakiin qofka 5 jeer ku celiya dee waa qofku dhaci raba markaa looga 3 jeer haddaad ka dhigto fiicanta security ahaan 5 jeerna waad ka dhigan karaysaa 5 jeer haddii lagu celiyo waa locked buu iska dhigaya markaa settingiisu intaas isna ku eegay muhiimaddu waxyaabaha kalena idinkaas kasii baaran doona eegi doona haddaan imika application haddaan xidho imika application haddaan isku dayo inaan xidho facebookayga kale haddaan xidho hadda facebookayga uu xidhay haddaan kasoo wada noqdo oo aan facebookaygii soo kiciyo log baa ku xidhan sad wada aragtaan oo log bii weydiinaya si kasta wax kale u geliyo ma yeelayo imika markaa haddaan israa imika hacking ku samee aan tago settinga aan app managerka aan tago leo privacy waa kan applicationkii hacking haddaan imika israa ku samee wada aragtaan waa madowba yacni wax laga bedeli kara ma leh force stop ma oran karayo button sad aragtaan uninstall ma oran karayo clear data ma oran karayo waxaan ku samayn karaa applicationka ma leh wuxuun baa furi karaa applicationkana ka furi karaa qofkii isagu ku xidhay baa ka furi karaya cid kale ka furi karaysa ma leh laguma hackingna laguma samayn karayo marnaba waayo force stop uu xidhay uninstallna uu xidhay clear datana uu xidhay waa meelaha hackerska vulnerable-ka meelaha applicationska kale ka leeyihiin vulnerable-ka weeyaan godololooyinka app logiska kale leeyihiin weeyaan force stop haddii force stop xitaa la xidho clear data leeyihiin oo clear data haddii lagu dhufto applicationku waa application cusub buu noqonayaa oo aan weligii lagu xidhin application aan lagu xidhin weligii marka applicationkan aad buu advanced u yahay securedna weeyaan aad baa yacni waxyaaba badan looga hortagay oo security vulnerable-ki oo laga saaray weeyaan applicationka intan muhiimadda cashirkeena maanta waa intaa application app looga oo aan hacking lagu samayn karin weeyaan applicationkan haddaad isticmaasho yacni si fiican baad u isticmaali kartaa oo secured ah datadaaduna way ku ammaan geli doontaa iyo applicationkaagu applicationku application aad u fiican hadday applicationkan qofkii u baahday sidaa soo dejiso wuxuu ka heli karaa Google Play Store marka saa u tagto wuxuun baad ku qortaa Leo isagaa sukaa soo saaraya markiiba Leo haddaad ku qorto ka ugu horeeya kusoo baxaya noqon doonaa ku dhufo samba kugu soo baxaya deetana install dheh application aad u fiican runtii oo vulnerable badan laga saaray oo habab badan wax loo jebin karayo laga saaray cashirkeen maanta intaas ku eegeen u malaynayaa intii taagteedaan inay insha allah iga faa'iidaan baan rajeynayaa aniga waa Farxaan Xasan Dalbac insha allah hadda wixii ka dambeeyana waxaan ka saari doonaa casharada dhinaca security-ga ama hacking-ka ah sida hacking loo sameeyo iyo sida looga hortago casharadana waxaan u baran doonaa insha allah bidnillahi kariim inaad aqoontaadu kororsato inaad qof hacking ku samayso datadiisa dhacdo ama waxyaabo noocaas ah samaysana adiga yacni isu qaba adiga lagala xisaabtami doona adaa madaxa saaran doona qofna inuu mas-uul ka yahay yacni waxaan baan usoo gudbinayaa
cilmi aynu kala faa'iidaysano oo idinkuna waxaad ugu dhaantaan idii faa'iidaysaan anna waxaad ku dhamaan idii faa'iideeyo insha Allah bismillaahi kariim wixii qof kastana wixii khalad u sameeyo oo isaga dumadiisa anna waxaan soo dhigayaa in wax la jabsado oo qof waxiisa loo boodo maaha waa in qofku cilmi ahaan u kororsado cilmi ahaan u ogaado baa soo gelinaya insha Allah dhammaantiin aad baa u mahadsantihiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh